baarlamaan ogow bilicda qarankeena iyo oluglow calankayagiyo dhammaantiin inaad badbaadan wadini dhiiga u baxshay baqagiisiyaa loo go'ay qarankeena iyo oluglow calankayagiyo dhammaantiin inaad badbaadan wadini dhiiga u baxshay mabaqagiisiyaal u go'ay
بالي صومالي صومالي بالي صومالي صومالي بالي نينكي كلا صار له kala socwado ninkii si xun u fekero ninkii kala saar lahu ninkii kala socwado ninkii si xun u fekero aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale sareeda hadday ku harto haddu silciyo dhib gadho samaanteediyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale sareeda hadday ku harto haddu silciyo dhib gadho samaanteediyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale soomaaliya soomaali baale Somalia, Somali Valley. Somalia, Somali Valley. Somalia, Somali Valley. Somali Valley. Somalia, Somali Valley. Somalia, Somali Valley. Ninkii kala saar lahu ninkii kala socwado ninkii si xun u fekero kala saar lahu ninkii kala socwado ninkii si xun u fekero aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale sareeda hadday ku harto haddu silciyo dhib gadho samaanteediyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale sareeda hadday ku harto haddu silciyo dhib gadho samaanteediyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale soomaaliya soomaali baale soomaaliya soomaali baale soomaaliya soomaali baale Somalia, Somali Valley. Somali Valley. Somalia, Somali Valley. Somalia, Somali Valley.
kala saar lahu ninkii kala sooc wado ninkii si xun u fekero ninkii kala saar lahu ninkii kala sooc wado ninkii si xun u fekero aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale sareeda hadday ku harto hadduu siliciyo dhib gadho samaanteediyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale sareeda hadday ku harto hadduu siliciyo dhib gadho samaanteediyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale soomaaliya soomaali baale Somalia, Somali Valley. Somalia, Somali Valley. Somalia, Somali Valley. Somali Valley. Somalia, Somali Valley. Somalia, Somali Valley. Ninkii kala saar lahu ninkii kala sooc wado ninkii si xun u fekero kala saar lahu ninkii kala sooc wado ninkii si xun u fekero aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale sareeda hadday ku harto hadduu siliciyo dhib gadho samaanteediyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale sareeda hadday ku harto hadduu siliciyo dhib gadho samaanteediyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale Somalia, Somali Valley. Somalia, Somali Valley. Somalia, Somali Valley. Somalia, Somali Valley. Somali Valley. Somalia, Somali Valley. Somalia, Somali Valley. Ninkii kala saar lahu kala sooc wado ninkii si xun u fekero ninkii
kala saar lahu ninkii kala sooc wado ninkii si xun u fekero aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale sareeda hadday ku harto haddu siliciyo dhib gadho samaanteediyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale sareeda hadday ku harto haddu siliciyo dhib gadho samaanteediyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale soomaaliya soomaali baale Somalia, Somali Valley. Somalia, Somali Valley. Somalia, Somali Valley. Somalia, Somali Valley. labada gole marka sidaa darteed marti badan ayaa ka soo qaybgelaysa waxaana hadda inoo soo gelaya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdibarre mudane ra-isul wasaare soo dhowow waxaan idin xasuusinaa waxoogaa munaasab maaha sacabku marka sidaas darteed inaad deganaanshaha ilaalisaan kulligiin caalamada howlwadanada idin keenaya idinkoo mahadsan wax yar
waad mahadsantihiin howlwadeennada way dhammaatay shaqadiinni marka iska fadhiistaa waad gaarsiiseen sixun u fekero ninkii kala saar lahu ninkii kala sooc wado ninkii sixun u fekero aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale sareeda hadday ku harto haddu siliciyo dhib gadho samaanteediyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale sareeda hadday ku harto haddu siliciyo dhib gadho samaanteediyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale soomaaliya soomaali baale Somalia, Somali Valley. Somalia, Somali Valley. Somalia, Somali Valley. Somali Valley. Somalia, Somali Valley. Somalia, Somali Valley. Ninkii kala saar lahu, ninkii kala sooc wado, ninkii si xun u fekero. kala saar lahu ninkii kala sooc wado ninkii si xun u fekero aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale
sareeda hadday ku harto hadduu silciyo dhib gadho samaanteediyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale mahadsanidin Somalia, Somali baale Somali baale Somalia, Somali baale Somalia, Somali baale ninkii kala saar lahu ninkii kala sooc wado ninkii waxaa laga soo gala dadka faraha badan ee taagan inay isfududeeyaan xumaanteed Soomaaliya Soomaali baale sareeda hadday ku harto hadduu silciyo dhib gadho samaanteediyo xumaanteed Soomaaliya Soomaali baale Soomaaliya Soomaali baale Soomaaliya Soomaali baale dastuurka kumeel gaadhka mudan madaxweyne soo dhowow waad mahadsantihiin mudanayaal waxaynu gudageli doonaa barnaamijka Ibrahim mudanayaal heesta calanka ayaan ku bilaabanaya
وهجاج مع السندين مدن مدحوينه guddoonka baarlamaanka federaalka iyo xubnaha sharafta leh ra'iisul wasaaraha iyo golaha xukuumadda iyo marti sharafta saraakiisha iyo dhammaan howlwadeennada maalin wanaagsan maanta ay taariikhdu tahay 2 bisha 1 January sanada 2024 kalfadhiga afraad kulankiisii koobaad ee labada gole oo ku saabsan kulan uu isugu yeedhay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkii qodobka 66aad ee dastuurka ku-meel gaadhka ajendaha oo ku saabsan arrimaha masiiriga ah ee dalka mudane guddoomiye waxaan ku furanhaynaa aayadaha qur-aanka kariimka Ismaaciil Ciid mudane xildhibaan soo dhow Sheekh Ismaaciil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مدن مدحوينه guddoonka xubnaha baarlamaanka federaalka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo xukuumadda kalfadhigan aan caadiga ahayn ajandihiisu wuxuu noo noqon hayaa hadal jeedinta guddoonka labada aqal madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dood ka dambaysa kolkii khudbadda madaxweynaha la fasixi doono dooda ku xigta oo noqon doonta inay xildhibaanadu ka doodaan kulanka barnaamijkeena ayaan toos u gudagelaynaa waxaana u yeedhayaa guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdulaahi mudane guddoomiye
munaasabadan kusoo dhowow si hadalka ku aadan aad uga jeedisid. waad mahadsantiin. بسم الله الرحمن الرحيم. maanta oy bisha January tahay 2 waa maalin inagu soo aaday aanan ku faraxsanayn sanadka bilowgiisii oo ahayd magaalada Jabuuti shir uga socday labada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Somaliland laba wafdi oo kala hogaaminayeen oo fikirkii na soo gaadhay 31 bishan December uu ahaa midna farxad geliyay oo ahaa isu soo dhawaansho wada hadal si daacadnimo loo wada hadlo oo dalka Soomaaliya oo aad moodo sanadadan dambe inuu kala firiirsanaa isu soo ururintiisa wax badan lagaga hadlay oo aad ugu faraxnay. waxaan aad iyo aad uga xumahay 1 January 2024 inuu isoo gaadho waraan aad iyo aad uga naxay oo ah aad moodo dowladda Itoobiya oo sidaynu la soconno weligeed iyo allaheedba raadinaysay inay qayb Soomaaliya ka mid ah ay hesho oo afar xukun oo isaga dambeeyay. Minilik waa qarnigii 20aad boqor ka noqday oo ahaa ninka dowladda rasmiga ah ee casriga ah Itoobiya ka hirgeliyay ka soo bilow waqtigaas ay ku xigtay boqortooyadii Haile Selassie ee ku xigtay tii Mengistu Haile Mariam ee ku xigay kii Malas intuba waxay ku taamayeen inay qayb Soomaaliya helaan gaar ahaan bad bay aad u danaynayeen. waxaan aad iyo aad uga xumahay shir la leeyahay Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed ayaa Addis Ababa ku yeeshay oo warka aniga afar weedhood oo faxmaar ku qoran ayaa aniga oo markaa salaadii maghrib tukaday shalay ku soo dhacay telefoonkayga. waa 4 weedhood 4 sentence oo afxmaar ku qoran waan akhriyay. waxay igu noqotay mucjiso iyo la yaab. halkaas waxa ku qornayd Itoobiya waxay heshay deked yeelatay ma ay heshay wax yar kursiga ayaa wax yar gadaal u baxay.
waxay ridiko maasan kursiga ayaa gees u baxay raalli hada gudoomiye hadalku sii wadanaya idinkoo maasan oday dhacay uu ka soo qaada waxaan aad iyo aad uga xumaaday ereyadii meeshaa ku qornaa mid wuxuu ku leeyahay Ethiopia oo sanado badan deked la'ayd deked bay yeelatay waa arrin aad iyo aad looga naxo waxaa kale uu leeyahay Red Sea waxaan ka helnay albaab ay horumarkeenna kaalin weyn ka qaadanahay kan afraad wuxuu ahaa waxaa arrimaha heshiis ku gaaray Prime Ministerka Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waa wax laga yaqyaqsoodo aad loogu naxo waxaan leeyahay horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti iyo shicibka reer Jabuuti raalli noqda raalli ka ahaada dadaalkii aad samayseen iyo halkaa waxa ka soo dhawaaqay ee aan la qaadan karaynin waxaan kaleen leeyahay badda Soomaaliya ma aha neef xoolo ah oo qof suuq geysanaya ma aha badda Soomaaliya way ka culus tahay taas ma rabo inaan khudbadda ku dheeraado wafdigii halkan ka tegey iyo madaxweynaha Jabuuti iyo wafdigii ka tegey Somaliland wixii ay noo soo saareen ee ahaa Soomaali inay wada hadasho heshiiso si run u wada hadasho waqti ha qaadatee aakhirkan ay ku soo gabagabi doontay Soomaali oo mid ah waxa weeye Soomaali ma kala maaranto marna ma kala tegayso waxaan leeyahay aniga hadda marka khudbad dheer oo aan jeediyo maskaxdaydu ma keeni karto laakiin waxaan leeyahay kolkaan sidaa u hadlaayo waxaan ogahay oon si dhaba u aqaana rabitaanka Ethiopia ay rabto marna ma daynayso yacni inay hesho bad iyo qayb Soomaaliya ka mid waa fikirkooda Soomaali waxa weeye waxaan qaadan karna taasi ma aha marna ma suurtoobayso Ethiopiana ma qaadanayso taariikhdeennana waynu ognahay innagiyo Ethiopia waxa ina kala raacay muddo dheer Axmed Gurey Sayid Maxamed Cabdulla Xasan 64 77 kulligeed waa taariikh taalla oo Soomaaliya iyo Ethiopia dagaal ku dhex marayay oo rabitaankuna uu ahaa kaliya Soomaaliya ma ahayn weerarka ma ahayn waxa weerarku ka socday marka laga reebo 77 waa run inaga weerarku ahaa laakiin inta kale oo dhan iyagay ahaay waxaan leeyahay marka Soomaaliya waa tii ma aha mid cusub aad iyo aad baad mahadsantihiin raalliga ahaada warku inuu dheeraado ma rabo oo kooban maanta halkan waxaynu u fadhinaa dalkeenna midnimadiisa iyo noloshiisa iyo wadajirkiisa ayaynu rabnaa aniga Cabdi Xaashi waxaan rabaa mowqifkaygu ma aha mid maanta taagan waa 2000
waxaa laygu xiray Hargeysa waxa kale layguma xirin waxaa laygu xiray fikirkayga ayaan ka jeediyey shirkii carta carta maaha Jabuuti 60 qof oo la talin weydiisanayay Ismaaciil Cumar Geelaan ka mid ahaa mowqifkaysan halkaasaan ka cadeeyay markaas annaga oo saddexa waa ka nimid shirkii oo aan xirmin baan ka nimid sababa aan uga nimidna way iska jireenoo kolka shirkii oon la xirin ayuu ninkii guddoomiyaha noo ahaa igaad shir ahaa tegey arrin aanan hadda wakhtiga idinkaga qaadanayna dhacday halkanaanu nimid annagoo saddexa hay'ad la yidhaaho life and peace ayaa shir igu casuumtay booramaa la iga soo xiray aniga ma rabo inaan ku dheeraado laakiin mowqifkan sheegay ee maxkamad laygu geeyey dee wuxuu ahaa Somaliland way goosatay kolka qof kasta oo Somaliland darihi shirka Jabuuti hadduu tago waxa weeye waa dambiile Somaliland darba ma yihi baan idhaahno kuma dhalan ma degani goosasho Soomaali kala godana ma ogoli taasaan bil iyo 9 cisho ku xirnaa laakiin intaasoo dhan waxa fikirka halkaa yaalay wiilal i weydiinayay 2 wiil oo dhalinyaro CID i weydiiyeen wuxuu ahaa ma adigoo Sacad Muuse ayaad leedahay Somaliland darmay Sacad Muuse waa loo dhashaa sharcina igama qaadi karo imana siin karo haddaan Australia joogo waan ahaanayaa Sacad Muuse laakiin sharci wuxuu iga qaadaa ama uu isiiyaa qoomiyadayda weeye Soomaali baana aniga intaan ku xirnay intaasay ahayd maantana intii baan taaganahay waagaa sidaan uga imid waa 2000 waan ka maqnaa in yar baan idin raacinaya leesh taariikhdayda maanta inaan idiin sheego markii lay soo daayay bil iyo 9 cishaan kadib jilib hoosoon ka tirsan oo la yidhaaho reeshirdoon ayaa qada ii sameeyey waxaa la yidhi Jabuuti midnimo Soomaaliyeed baa iska taagay halkaad ku xirnayd iyo halkan aan ku qadaynaynana 500 oo nin oo reeshirdoon ku dhimatay adna halkaasaad isla taagtay midnimo Soomaaliyeed 2 arrimood inay horta dhibi dhacday waan qirayaa baan laakiin 2 arrimood baynu ku kala duwannahay waxaynu ku kala duwannahay idinku waxaad qabtiin shicibka koonfureed inuu idiin geystay dhibta anna waxaan qabaa 60kii dowladdii dhalatay oo tii Cabdirashiid xukuumadii tii Cabdirashiid tii Cabdirasaaq tii Maxamed Ibraahim Cigaal iyo tan ugu dambeysay Maxamed Siyaad inay idiin geysteen waxaad qabtiin xalkiina waxaad u aragtaan idin goosasho anna waxaan u arkaa xalku inuuna goosasho ahayn dowlad caadila oo dadka Soomaaliyeed cadaalad u samayso kaliya haddii la heray noqonaysaa xalkii goosasho kuma jiro intaas waxa Cigaal buu ahaa ninkii Maxamed Ibraahim Cigaal baa madaxweyne ah waan ku geynaynaa halkan wax ka noqo maya haddaad kala wareegteen dambigu iga galay taariikhdan u daynaya waana idinka tegayaa waana ka soo dhoofay sidii baan uga maqanay laakiin inay hagaagto nabad noqoto mid ahaato muddadii hadda ay nabad ahayd hadda inay nabaddaas ku jirtaan u baahan in fikirkuna isbedelo waan u baahanay oo midnimo timaado maantana waxaan qabaa ta arrintani shicibka way xoojin doontaa ee ma noqonayso arrin ay Itoobiya sidaa bad Soomaaliyeed ku qaadato raalliga ahaada aad iyo aad baad u mahadsantihiin mudane guddoomiye ku soo dhawow aad iyo aad u mahadsantahay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أمور الدين والدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم مدعوينها الجمهورية بدوميها الكسر الأمان قدون كلا بد أقل الوانا ده شرفت الأمان كسوق الكلياشة إلى مدى قلب السيدة الأمان مرت شرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدحوين مدن نيالي مروين الوانا ده شرفت له ما أنتو أي تاريخ تهي كود بش جنوب لابكم لباتيني أفر runtii baarlamaanka koob iyo tobanaad kalfadhigiisa afaraad kulankiisa lixaad ee labada aqal aan caadiga ahayn ee ku saabsan masiiriga dalka walaalayaal arrin caadi ah ma aha maanta xaqiiqdii dhammaan ummadda Soomaaliyeed mas'uul siyaasi shacab dadweyne maanta ummadda Soomaaliyeed runtii muruga xalay ku seexday laakiin alxamdulillah waxaan aaminsanahay isku dayriye maalameed inay tahay oo aan waxba ka jirin baan iska aaminsanahay saansa maartay nideeni ay ku jirtaa laakiin isku dayga la sameeyay ma aha wax loo dul qaadan karo oo yaani ummadda Soomaaliyeed dhagaheediina maartay u roon ma aha waxaan rajaynaynaa inay noqoto walaalihii kala godoodsanaa oo ummadda Soomaaliyeed oo ehelka ahaa oo muddadan kala maqnaa tii ay ku midoobi lahaa inay noqoto isku dayga markaan arkaan cadowgooda siday u fikirayaan markay arkeen tii ummadda Soomaaliyeed ku midoobi lahayd inay noqoto ayaan rajaynaynaa xaqiiqdii qalad weyn waa ka dhacay walaalkeen Muuse Biix laakiin waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed asiga mas'uulku yahay waxaan aaminsanahay dareenka aan qabno oo kale inay qabaan oo maanta la yaaban yihiin arrintaas yaan aaminsanahay ma inay ku faraxayaan oo soo dhaweynayaan ma aaminsan xaqiiqdii حقيقي أرنت ماشي كده عادي أو ما أعرف كسر هرجيدو شريعة الإسلام كسر هرجيدو قانون international كعالم كسر هرجيدو مدوغا يوروب مدوغا أفريقيا شروط أطالو إيو تان ما أعرف يعني جامعة على أطالو وروب الإسلام أطالو يونايتد نيشن أطالو وح كسر هرجيدو أو عد الله بريري يعني أفكري إن معركتي يعني وقعتي صوماليا بربركي جاري إن معركتي لحوجي كرو لإنكري كرو يعني لقدر النولان كرو دل كذي إيو دنمذو ذي يعني لسبرير اللحوجي كرو هدو آميني أبي أحمد أو معركتي ساس إنه دل كيس بربرك هدو فوت ساري أو خلافات كي دجالة سكي كسعدان إن إثيوبيا ساس كم مدايو هدي ألقيس وشيء ومتوصلين ما أقولان تونتو تاسنا كم مداوي دونان تاس واحد وهر سيد دونتا إنسان آمن سنة هاي بربر هرله ويا أمة الصوماليات يو إثيوبيا واحد أحد هذا هانجري والو أوجي هاي تاريخ ده هذا قدومي هكشيء كيي لكن مدة دمبه فنتي وحمارة أمة الصوماليات أيضا ويل بربر كجرتو إيوه سياسيين تا إثيوبيا كم وحمارة برنامج حجب بدن لقلها إن درس ويناك iyo ma aragtay yani deganaansho manطقada ah in lagu wada dadaalo oo yani isdil iyo dhibaato yani inaan lagu wada noolanin ayaa ma aragtay abaabulkeedii lagu dadaalahayay maanta calaaqaad baa jiray yani wax kasta ganacsi iyo nooc kasta la isdhaafsanahay amaanka waxyaalaha qaarkood la iska kaashaday oo meel fiican soo gaartay laakiin fikradda hadda lagu dhaqaaqay oo aan idaacadaha ka maqlaynay maalmaha dambe aan maqlaynay oo xalay qof Soomaaliyeed intuu la fariistay Abi Ahmed waxaas martay warqad kula qortay waa nasiib darro iyo maartay giraad xumo soo korortay oo maartay yani manطقada dhan u ah bilaaya hadda la abuuray oo horle walaalayaal waxaan aaminsanahay arintaas inay noo noqoto ummadda Soomaaliyeed in maartay tii ku madoobi lahayd dhulkeedii dadkeedii sharafteedii difaacida lahayd qarannimadeedina degdeg u dhameystir lahayd wixii oo kala daadsanaa taas inay noqotaan rajaynaynaa annaga waa noo dhaman tahay marka madaxweynaha maadaama qodobka dastuuriga 66 uu sidoo qabo maanta fadhigeen asiga iskugu yeeray asigaan ku soo dhaweynayna asigaan siinaynaa kadib anuu golaheeni waa isku xaraynaa waad ogtihiin xukuumaddana maanta qaraar bay go'aanay soo saartay annagana waxaa laga rabaa anigoo labada aqal fadhino ummadda Soomaaliyeed ka turjumayno inaan ma aragtay wixii nagaga aadan
oo aan maaragtay ummadda Soomaaliyeed caalamkaba ugu digayno waxa meesha laga soo abaabulahayo markaas isku harayna hal dulqaato maanta maaragtay gabalka nagu dhaw hadii la rabo yani wax tanka weyn oo la qaban lahaa ma jirto marka khudbadeena gadaal ay jirtaa marka xildhibaanadeeni waa ka doodi doonaa go'aanaan soo saari doonaa hadda marka hore waxaan ku hormarin doonaa inuu madaxweynaha khudbadiisa noo jeediyo qodobkiisa dastuuriga ka guto ka badan aan isku haraynaa maanta qof kacay iyo qof dhaqaaqay ma jiro raashin looma baahna biyo looma baahna intaan fadhinaynaa aad u mahadsan yihiin madaxweyne ku soo dhawow adiga aad mahadsan ninkii kala soocwado ninkii si xun u fekero ninkii kala saar laho ninkii kala soocwado ninkii si xun u fekero وماسنتين الله يعزه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان قدونك بارلمانك فدرالك سوماليا حلبان هذا شرفت له دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت سيدا أي أضياشي قدونك نوعها أي وتاريخيين وتلمامين ومالين آدي مهم ugu ah taariikhda cusub ee Soomaaliya cusub ee maanta hana qaaday ee wadadii maxaa saxda ah ku dhaqaaqday waxaan rabaa hadalkayga inaan ku bilaabo wax yar oo taariikhda laga hadlay hadda qaar kamid ah dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo caalamkuba waxa uu marqaati ka yahay Soomaaliya iyo Ethiopia shalay daris ma noqon muddo fog oo qarniyaala ay daris ahaayeen qarniyaashaas ay dariska ahaayeen in badan oo ka mid ah 600 sano 700 sano lagu qiyaasahay taariikh la yaqaano oo qoran ayaa ka dhaxaysay taariikhdaasi taariikh aad iyo aad u qurux badan ma ahayn taariikh dagaal iyo cunfi iyo colaad iyo burbur ku salaysan ayay ahayd taariikh jihaad waxa la yiraahdo iyo crusade waxa la yiraahdo oo saliibiyiinta iyo jihaadiyiintu ay ku dagaalamaan ayay ahayd taariikhdaas muddo dheer ay soo tixneed dagaaladii hadda dambe oo gudoomiyuhu uu ka hadlay oo inta badan Ethiopia nooga imaanayay laakiin marmarka qaarkood annaga naga imaanayay dabcan yaan soo marnay wadadaas iyo taariikhdaas waxay ku soo dhamaatay 1990kii markii dawladdii Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre oo madaxda ka ahaay ay collapse garowday dawladdii Ethiopia oo Mengistu Haile Mariam oo madaxda ka ahayna ay collapse garowday labada dawladoodba ay burbureen taariikhdaas soo socotay ilaa qarnigii 15aad bilowgiisii iyo qarnigii 14aad meeshaas ku soo dhamaatay laba dawladood oo cusub ayaa Soomaaliya iyo Ethiopia ka hana qaaday jamhuuriyadda saddexaad ee maanta annaga aan madaxdeedii mas'uuliyiinteennii kam aan nahay ayaa Soomaaliya ka hana qaaday dadka Soomaaliyeed in badan oo kamid ah waxay isu sheegeen inaan loo noqonin taariikhdaas dhibka badan ee hore loo soo maray ee colaadda iyo burburka iyo dhibaatada labada dal ka soo jirtay dadka Soomaaliyeed si dhab ah ayay go'aankaas u gaareen in ay colaad ka jeestaan oo ay u jeestaan nabad iyo maxaan ku yiraahdaa daris wanaag iyo wada noolaanshiyo waa midaas mid aan ku keenay sloganka maanta aan haysano oo Soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis la ah duniduna dariskeena ka bilaabataa aan heshiis kala nahay nasiib darro in kasto oo dad badan oo Soomaaliyeed mar walba ay qabeen
dalkan aan dariskana Ethiopia la yiraahdo colaadaasi kama dhamaan yaa la qabay laakiin dad badan qabay waxyaabaha socda waxyaabo duruuftu keentay waaye colaad ma aha way iska dhamaan doonaan aan dul qaadan Ethiopia xumaanteed iyo burburkeed iyo kala qaybsankeed kamaana shaqeyn annagoo waliba asbaabo badan oo ay dad badan jeclaan lahaayeen inaan uga shaqeyno aan sheegi karno ama aan haysano loo soo istaagi karno maanta bishii January 1deedii 2024 waxa dhacay wax cusub waa curato maanta la joogo curato ku ah duruufta jirta laakiin aan curato ku ahayn taariikhdii hore ee aan soo marnay aan curato ku ahayn waay cid awood u leh dalka Soomaaliya cad kamida inay bixisaahay ma jirto awooyaasheena diiday aabayaasheena diiday hooyooyinkeena iyo ayeesheena diiday annaga intaan nooleyn hadda diidnay sinna suurtagal kuma aha inta yartaa ee maanta Soomaaliyada aan haysano oo aan waliba hoosta ka qabno in badan aan naga maqan oo inay naga maqnaato aanay ahayn laakiin haddana aan inaan horumarsano nabadayno maxaan ku yiraahdaa dadka ku nool iyo deegaanada wax aan qurxino aan ku ballanay maanta in ay cad kamida u baxays dadka Soomaaliyeed ma ogola meel kastoo ay joogaan xuduudda gudaheeda kuwa ku jira xuduudda banaankeeda kuwa joogaba waan wada ognahay Soomaali qaanuunka caalamiga international law ma ogola waxa 1 January Addis Ababa ka dhacay qaanuunka caalamiga ay ka soo horjeedaan international law waxay ka soo horjeedaan international customary law xeerarka dhaqanka caalamka ka jira oo qawaaniinta marka laga yimaado hab dhaqanka caalamka ka jira ee dawladaha iyo ummadaha ay u dhaqmaan ka soo horjeedaan sina dhaqangal kuma noqon doono haddana dhaqangal kuma ah waxaa intaas dheer taariikhdeena ka mid ah walaalaha Soomaaliyeed ee waqooyiga Soomaaliya ku nool ama Somaliland dadka Soomaaliyeed ay ka tirsan laakiin taariikhya la kala leeyahay deegaanka taariikh uu leeyahay taariikh caam ay leeyihiin qarni hore aabayaashii iyo awoowayaashii dalka iyo deegaanka deganaa waxay diideen isticmaalkii caruurtiisu inay ku dhalato dalka heshiisyadii ay galeen waxa ka mid ahayd naag ajnabi ah oo isticmaalka gabdhahooda in aanay ku dhali karin dalka oo haddii ay dhalayaan ay baxaan ay dibadda ilmooda ku soo dhalaan si aanay dalkan xuquuq iyo sheegasho ugu yeelanin taariikh hore oo maqaar ku qoran wey maanta haddii ay nool yihiin maxay dareemi lahaayeen maanta qarniga 21aad awooyaashaas caruurtoodii qaar ka mida dalkii aan gobol ka mida bixinayna inay dhamalaha nolosha inay hore ka dhimalahay wadno istaagi lahaa u malaynaya haddii ay noolaa lahaayeen daw ma aha taariikhdaas sharafta leh oo qiimaha badan ayaa waqooyiga Soomaaliya iyo dadka degan ay ka soo jeedaan walina waa aaminsanahay dadka waqooyiga Soomaaliya ku nool heybadaas iyo sharaftaas wali waa leeyihiin aan qaba berigii Soomaaliya annagu taramkii hore aan madaxweynaha ahay oo ayna haysatay arintii badda ay taagnay ayaan ogahay dareenka iyo fariimaha ka imaanaya waqooyiga Soomaaliya sida ay ahaayeen ayagoo cornerka kale Soomaaliya biyo dhul ma ah dad ku nool yahay biyo jadda jiro oo badweynta India kamida la isku haysto dareenkoodii aan ogahay biyihii kale dhinaca kale agtooda ahaa maanta waa la bixinayaa in la yiraahdo sina suurtagal uma waan hubaa in aanay ku faraxsaneen kuna farxi doonin aanay aqbali doonin waa hubaa waxa intaas dheeran dadka fariinta kale u rabo inuu farxo tahay walaalayaal Ethiopia aqoonsi idin ma hayso aqoonsiyan idin siin haday tiraare aqoonsi jira ma aha
dad jiro oo Soomaaliyeed oo haddaba jira nabadaysan barwaaqaysanatiin Soomaali inteeda kalena colaad idin ma qabto wax kasta oo na dhaxmaray oo hore oo dhacay xanuun kasta oo hore la dhaafay wax kasta oo tabasho ah oo jirtay ma goyso dhulka qaar ka mid ah bixinayna in la yiraahdo marna ee aqoonsiyan ka dalbanayna ma goyso waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed oo waqooyiga Soomaaliya degan inaan xusuusiyo taariikhda Itoobiya iyo Eritrea ay ku midoobeen iyo markii dambe meesha ay tagtay inta dadka Eritrea ay ku qaadatay midowgii Itoobiya ay la midoobeen iyo ogolaanshii Itoobiya ay ogolaadeen meesha ay ku dhamaatay iyo intay ku qaadatay wada la sahmiya meeshaas naga ma jirto dawladda Itoobiya waxaan leeyahay dadka reer Itoobiya mar walba darisaan ahayn ismaanaan dooran ilaaha daris naga dhigay waanan ahaan doonaa hal option aan qabnaa nabad inaan ku wada noolaanaan qabnaa option kale noo furan ma laha ayadoo duruufaha maanta geeska Afrika ka taagan ee cimilada isbedeshay climate change-gu uu keenay dadkanagu ay la tacaalayaan ayada oo maanta la og yahay argagixisada geeska Afrika ka jirta dadkanagu inay la tacaalayaan ayadoo la og yahay badda cas ee hadda la hadalaya xaaladeedu sida ay tahay oo cadawiyada faraha badan maanta ay geeygan geeska Afrika ay ka jiraan in yaroo shidaala lagu sii shubay sax ma ah Soomaaliya Itoobiya macaamilkeedii sanadihii dambe Prime Minister Abiy Ahmed waxaan leeyahay faragelintii Mala Zanaawi markuu Itoobiya madaxda ka Soomaaliya uu ku sameeyay Al-Shabaab ka dhashay shabaab ka hor ma joogin dalkan maanta oo aan shabaabka ka adkaanay oo baabi'intoodii ay joogno oo ay madaxdoodii mas'uuliyiintoodii isu soo dhiibayaan oo dhulkii in badan oo kamida aan ka hayn inta kale aan ku sii socono fursad kale in loo abuuro shabaabku ay soo istaaga xalaya ugu dambeysay degdegsiyo waad maqlayseen shabaabku waxay ku hadlayeen cali dheer xal wuxuu ku hadlay waa maqlayseen fursad kale iyo slogan kale oo dhalinyaradeenna ama nationalists ha ahaadaan ama wadaadaha ahaadaan si uu u fogaaday lagu soo recruit gareeyay shabaabku ay ku helaan dhalinyaro badan oo ay soo xereystaan oo ciidan u noqoto ayadoo maanta dhalinyaradii ay ka soo wada tagayso arintan waa arin kale oo fursad kale abuurayso waay nama qabato Soomaali haddaan nahay meel kasto aan joogno gobolka geeska Afrikana ma qabato gobolkan hadduu la tacaalaya oo meel kasto colaadi ka hursan tahay Soomaaliya xidig soo iftiintay oo gobolka geeska Afrika ka soo dhax iftiintay oo nabad iyo maxaan ku deganaanshiyo u sii socota ayay ahayd waa ka xunnahay in ay arintaani soo dhacdo xilli ay sidaas ay muxuu ahaay arinta ahayd oo shabaab oo sii dhimanayana aan tallaabooyinka aan qaadaynahay ay dhiig ku shubaan aad iyo aad ayaan uga xunnahay dadka reer Somaliland ee walaalaha ah mar kale waxaan leeyahay walaalayaal colaad iyo dhibaato idinka soo jirta halkan waxa idinka soo jiraahay waa walaalo walaaluhuna waxa la yiraahdaa amal walaal ama carada walaalka gasha amankay gashaha la yiri carabkaana looga bixiyaa macnaheedu waxay tahay walaalka hadii uu ka caroodo hadee waa walaalka xagee tagaya bariyo is gooni yeelaya laakiin marka dambe aad la hadasho carabka looga bixiyaa macnaheedu waxa waa la wada hadlaa wada hadalkii aan ogolayn wanaagan ogolayn waligeen isku madayin gobnimada Soomaaliya sovereignty-ga dalka Soomaaliya ee dawladda federaalka ah iyo golayaasheedan ay mas'uulka ka yihiin in lagu cadaadiyo wax loogu dhimo maxaan ku iraadahay lagu waxay Somaliland weligan kamaanaan shaqeyn haday colaadi ka dhaxdhacda dhaxdoodana mar walba hadalkeenu wuxuu ahay hal dago hal dajiyo hal heshiyo oo hal nabadoobo waan ka shaqeynay waana ka shaqeynaynaa welina waa ka sii shaqeyn doonaa
ka caajizi mayna haddii aan yidhaah laakiin dalku waxaan rabaa dalka annagu ma lihin annaga maanta joogna ee talada joogna mustawo kasta talada aan ku joognay dhulka annaga ma lihin sifo aan awood iyo aan u leenahay inaan bixinnana ma jirto awood sharciyeed iyo awood damiir iyo dadnimo oo na siinaysa dhulkeenna qaar inaan bixinna ma jirto dhulka waxaa iskale generationska soo socda ee qarniyaasha soo socda soomaalida ee jiri doona ayaa iskale geyiga sidaa daraaddeed waxaanan annagu lahayn awood uma lihin inaan bixinno wada noolaansho iskaashi dhaqaale waa waxa aan raadinayno oon suuqa bariga africa aan uga mid noqonnay oon muxuu ahaaye home economic integration initiative-ka la yidhaahdo aan u wadno on wax uga shaqaynaynay gobolkaana inuu wada barwaaqoobo oo maxaanku idhaahdaye wada nabadoobaan ka raadinaynaan ka shaqaynayn kamaanaan shaqaynayn inaan gobolkaas weynaan jiriyo hayna soomaaliya dhexdeeda inaan cunfi colaad ku soo celma rabno walaalayaal shalayna waa naga go'nayd maantana weli waa naga go'an tahay taako dhulka soomaaliya ka mid ah inay baxda ma ogolin sifo aan ku bixi karnana ma lihin annagu sidaan horeyba ummadda soomaaliyeed uga ballan qaaday haddaan madaxweyne ahay iyo haddaanan ahaynba taaka dhulka soomaaliya ka mida inay baxda waa ku celinayaa taaka dhulka soomaaliya inay baxda ma ogolin aan isku kaashanno dalkanaga inaan difaacano aan isku kaashanno inaan ilaalinno geyigeenna wada jirkiisa soomaaliya iyadoo intaan ka taag daran ay soo ilaashatay dhulkeeda caalamkana waa uga mahad celinaynaa nagu kaalmeeyey inaan dhulka ilaashanno maanta waa ka taagroonnahay intii hore hadday tahay xag dowladnimo hadday tahay hay-ado dowladeed iyo hadday tahay diblomaasiyadda muruqa diblomaasiyadda aan leenahay hadday tahayba intii hore waa ka taagroonnahay waxaan mar kale baaq u jeedinayaa dowladda ethoobiya wax badanoo wanaagana way naga soo dhexeeyeen wax badanoo wanaagana way noo madlanaayeen jihadaas aad bisha kowdeedii janawari u jeesateen ka soo jeestaan leenahay waddo idinkama jirta meeshaas bad haddaad rabtaan dekada haddaad rabtaan macaamil adduunya haddaad rabtaan si loo raadsado adduunyada dhan ay ogoshahay oo aan laysku khilaafsanayna jirto waddadu meeshaas idinka jirtaa soo mara laakiin nin maanta jooga ama federaalka ha jooga halkan ha taagnaado ama dowlad goboleed ha jooga oo midka dhulka soomaaliya ka mid idinsii kara ma jirin ha ku kadsoominaan leenahay haddii aan la yidhaahdo walaalayaal aad iyo aadaad u mahadsan tihiin ballanteennu waa maxay dalka soomaaliya soomaali baa leh soomaaliya soomaali baa leh meeshaasaan joognaa waana u dhimanaynaa waana difaacaynaa waana waxaynaynaa meel kastoo ay soomaaliya ay dhulkeeda ku leh aad iyo aadaa u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad aada u mahadsan tihiin madaxweynaha aad u mahadsan yahay madaxweynaha iyo tiimkiisa waan fasaxaynaa ninkii kala saar lahu ninkii kala sooc wado فكرو منكي كلا صار له منكي كلا صعوضو منكي سحن فكرو عضي تلدي كوسكتو سيداد مودي سماه warhooy soomaaliya soomaali baale aadaad u mahadsan tihiin xildhibaanadii sharafta leh hala fadhiisto
mudanayaal isqora idinkoo mahadsan sawaxanka hala yaray hala